بسم الله الرحمن الرحيم أرجع أقول دوبنا chapter كني تدرات مادة فيزيكا طبعا subject هو physics و chapter 7 وهنا كوسف سيء floating and sinking طبعا floating and sinking مركلي هذا سيدا كم وقت مركب كان هرتين يلا هذا شيء ده مرنا شيء إنه بيا دوشة سبعينية مرنا ودقيقة تاعي وحلقوا مجعبا floating and sinking أنت chapter كني سعودي وحنا كل برندونا ويسويدين دونا سؤالها أي كم تاعي سببت شياشة قيبتود مركي بيها لدول ديجو أي ودقيقان شياشة قيبتود ما إيجو سيدا الأركي وين سيدا مراكيب توكله أي وصل بينيان هذا chapter كني وحوك كومية وعن قايم دونا يونت كقوات يونت 1 لكن chapter content تسكع أي سنة وحكم ذا قيبت كقوات اللي رادو Archimedes principle وموضوع إن ما أنت دول استاجي دونه قيبت اللباد ونقول إيسا principle of flotation وحركة سبينتها relative density وفنان وذاك وفنان تأي وذاكان ورشي هي application اللي لوغا فايديستو موضوعا ليرادو floating and sinking وحنو أنت دول استاجي دونا Archimedes principle سيدا يونت كقوادين وكو غرنبا marka casharkani uu dhamaado by the end of this lesson the learner should be able to marka casharkani uu dhamaado bartu waxa uu awoodi doonaa waa midda koowaad state inuu sheego Archimedes principle inuu sheegi karayo iyo marka hore awoodi yeelanaya waa marka labaad explain waxa uu sharaxaad ka bixinaya the buoyancy force awoodda la yiraahdo buoyancy force oo noqonaysa dabcan awoodda shayaashu ay leeyihiin ee suuro gelinaysa shaygan inuusan ka gudbin ay celiyeen أنا بلون عشر كنا وموضوع كواد وأرتميكس بريسبل بينهم كأرتميخ طبعا أرتميخ وانين مجدي والسينسية إنجليزية قصة بيريوليه هي حرك وحود دقيقة سيدا صوصات when a body is partially مركا ولا قيب أهان or fully أما جود أهان immersed in a fluid لده جلية دريري it experiences ولا هذا صحيح لكل ميسا upthrust force أود لكم العرب upthrust force upthrust force وحنا كوسو دراسيني فصل كفومن تيبس force وسوا قاطن تيبس force ينوع كميين وأنا أود دريرها وحليرها هورياش وأيليه كهر إيمانيسا شيء أيلينيس upthrust force upthrust force يسوه which is equal كاسو أولئك the weight of the fluid displaced أرجع fluid أفيرسو كلمة fluid وحيو تاجن تاي waxaa laga wadaa laba shay oo la kala yiraahdo labada state ee la kala yiraahdo liquid iyo gas labadaas oo la yiraahdo fluids then xeerkan markaan soo koobno waa laba section wadada koowaad wuxuu dhigayaa in shay walba oo dareere lagu dhaxidaahi awoodi ka hor imaanayso awoodan maxaa niri upthrust force sax waa midda labaad ee upthrust force-gaasi waxa uu leeyahay weight of the fluid displaced miisaanka biyaha ama miisaanka dareeraha ay walaxdu barabixisay tusaale haddaynu u fiirsano sawirkan waxa uga jeedaa diagram 1 objectigan miisaankiisu waa 80 newton waxa la yiraahdaa weight in air waa weightka uu hawada ku miisaaman yahay waa miisaanka shaygu uu leeyahay marka hawada lagu miisaamo okay sawirka labaad u fiirso isla shaygii aan qaadnay waxaanu ku dhaxrinay biyaynu ku dhaxrinay okay إنك ميزان كيسو مون وراي كونتن نيوتن صح ويا كونتن نيوتن طبعا هو فوق صح waxaa dareemaysaa marka waxaa jirta awood ka hor timid oo la yiraahdo upthrust force jirgaan biyaha hadda soo qaadid oo banaanka isagoo buuxa banaanka inaad u culus yahay laakiin marka jirgaankiisu sidiisii u buuxda aad biyaha ku dhex rido dabcan waa uu ka fududaanaya sidii hore fudaydka maxaa keenay awooddaas waxaa la yiraahdaa celinaysa waxaa la yiraahdaa biyo ku saboot gareynayaan upthrust force office upthrust-gaasi waxa uu leeyahay sida sawirka saddexaad ka muuqata miisaanka biyaha barabaxay waa imise biyaha daatay banaanka ay imise noqonayaan hadda 30 newton upthrust-guna waa imise 30 newton labadooda markaas waa isleeyihiin example aynu tusaalayna marka example 1 waa tusaalayna koowaad tusaalaha waxaa ku qoran sida sawirka muuqata an object weighs 20 newton in air shayga wuxuu miisaaman yahay 20 newton ayuu hawada ku miisaaman yahay when it is fully submerged in water marka si buuxda loo dhaxgeliyo in water biyo it weighs 15 newton
ونقولنا 15 نيوتن وقول هذا أوفيرسو صورك diagramona waxa ku qoran 20 newton waa shayga oo kaligiisa marka lagu miisaamo hawada marka lagu miisaamo maxaana ku qoran 20 newton waxa la actual weight waa miisaankiisa rasmiga ah okay diagramtuna maxaana ku qoran waa marka shayga laftigiisa isagoo sidiisii ah ayaa waxa la dhaxgeliyay dareere biyo la dhaxgeliyay muxuu noqday marka 15 newton 15 newton haddana su'aasha koowaad waxa ku qoran calculate the buoyancy force xisaabi abtras area waa isku mid buoyancy force iyo abtras force waa laba area isku mid ah then abtras force ayaa xisaabinaysa b maxaa laynoo diray what is the weight of the water displaced biyaha barabaxay miisaankooda muxuu noqonayaa okay c maxaa laynoo diray su'aasha saad calculate the mass of the object waxaad xisaabinaysaa shayga maaskiisa aynu fiirino marka arday si fiican aynu soo socono aynu xisaabino halkan aynu ku xisaabino calculationka su'aashana aynu ku xalino sawirada waxaan leenahay marka hore solution waa jawaabtii dabcan waxaan ka bilaabaynaa oo ugu horeeya solutionkeena givenka aynu haysano waxa awalan la weydiiyey ama marka hore aynu doonaynaa inaynu soo saarno haddii objectigu marka lagu miisaamo hawada lagu miisaamo uu miisaankiisu noqdo 20 newton uu miisaankiisu yahay 20 newton marka uu yahay miisaankiisu dan isla shayga laftirkiisa markaynu eegnana oo aynu biyo ku dhex ridnana uu miisaankiisii noqday 15 newton ama 15 newton uu noqday waxaa kow su'aasha koowaad inoo ahayd sheeg ama calculate the buoyancy force dabcan halkaa u fiirso buoyancy forcegaas wuxuu noqonayaa xoogga ay biyuhu kala hor imaanayaan objectigan biyaha lagu dhex riday then markaynu raadinayno buoyancy force waxaynu samaynaynaa u sameeya su-aashu waa a waxaa lagu helayaa buoyancy force ama abthrust force waxaa lagu helayaa waa real weight oo laga jarayo apparent weight real weight halkan haddaan fiirino waa 20 newton waa qoranayna waxaan leenahay 20 newton minus apparent weight waa weightka shaygu uu ku leeyahay marka dareeraha lagu dhex rido isagana waxaynu haysanaa 15 newton halkaasaynu ku qoranaynaa labadaa markaynu kala goyno waxaa inoo soo baxaysaa ansarka aynu helaynaa wuxuu noqonayaa 5 newton su-aasha a ee ah calculate the buoyancy force jawaabteedu waa intaa waxaa la samaynayaa real weight ama actual weight of the object ayaa waxaa laga jarayaa apparent weight of the object uu ku leeyahay fluidka dhexdiisa ama dareeraha dhexdiisa hooraha dhexdiisa uu ku leeyahay su-aasha b waxaa laynoo diray calculate the weight of the displaced water waxaad xisaabisaa miisaanka biyaha barabaxay dabcan mar alle iyo marka dhagaxan biyaha lasoo dhexgeliyo wuxuu samaynayaa biyuhu wuxuu ku samaynayaa displacement oo hadda tusaalahaan waxaan u isticmaalnay kaankan kale ama weelkan kale ayaan waxaan u isticmaalnay in biyuhu halkan markay gaaraan levelkooda uu sare u kacayo then ay halkan ku daadanayaan waxaan ognahay biyaha barabaxay ee halkan ku jira sidaynu qaynuunka kusoo sheegnayba iyo waxaa isla eg abthrust forcega soo marka waxaan leenahay su-aasheena b ansarkeeda waxaan leenahay weight of the displaced water waxa uu la mid yahay 5 newton haddii aynu reasonka raacino because the weight of the displaced water miisaanka biyaha barabaxay the weight of the displaced water is equal to the abthrust waxa uu la egyahay awoodda la yidhaahdo abthrustiga ayuu kuu la egyahay dabcan mar kastoo abthrust forciga aad soo saarto waxaa kuu la eg shay walba wuxuu barabixinayaa inta miisaankiisu yahay in la eg ayuu displace garaynaya su-aasha c ee ugu dambaysa waxaa layna weydiiyey what is the mass of the object maaska walahdu inta uu noqonayo okay meesha mask sideedaba waxaa maaska lagu helayaa weight loo qaybiyey gravity maaska sidaasaynu ka helana waxaan kusoo saaraynaa weight loo qaybiyey gravity
meeshan weightkaan isticmaalayna waa kee marka laba weight baynu haysanaa mid waa 20 newton midna waa 15 newton waxaynu isticmaalaynaa weightka la yidhaahdo the real weight of the object miisaanka dhabta because of apparent weight haddaa isticmaashid weightkan apparent weightka haddaa isticmaashid waxay ka dhigan tahay ma ahan miisaankii saxda ee shaygu uu lahaa ee waa maxay waxa saboorti garaynaya oo shaygii kula haya marka xooggan lagu magacaabayo upthrust force-ga sidaa daraaddeed waxaan isticmaalaynaa the real weight of the object okay real weight of the object waxaan haysanaa stoonkan ama dhagaxan weightkiisa waxaan haysanaa 20 newton then waxaan leenahay 20 newton divided by waa 20 newton oo loo qaybinayo gravity-ga waxaan u qaadanaynaa 10 newton per kilogram then newton iyo newton waynu isu kansalaynaa halkan 0 iyo 0 waynu isla tuuraynaa waxaa kuu soo baxaya maaskaasi inuu la mid yahay 2 kilogram su-aasha jawaabteediina halkaasay ku dhan tahay arday isku daya bal inaad ka jawaabtaan ama aad isku tijaabisaan su-aashan soo socota su-aashuna waxay u dhigan tahay sidan soo socota the diagram below shows an object weighted in air and then in water separately respectively siday u kala horeeyaan haddaba su-aasha koowaad what is the weight of the object in air markan weightkiisa lagu weydiiyey banaanka ku leeyahay buoyancy force-ga lagu weydiiyey sidoo kale waxaa lagu weydiiyey weight of the water displaced iyo ugu dambayn waxaa layna ka rabaa inaynu soo saarno mass of the object su-aashani waxay la mid tahay example-kaynu aynu hadda qaadanay waynu saxaynaa waxaa laydinka rajaynayaa inaad isku daydaan su-aashaas salaamullaahi calaykum casharkeennuna maanta halkaasuu ku dhan yahay